نبي الله يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين صلى عليك الله زيني محمد ابن عبد الله ميلاده أخي في الله ربيع أول شهر الله في عاشرها مع الاثنين نبي الله يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين صلى عليك الله زيني مرحبا يا نبي الهادي مرحبا يا نور الفؤاد مرحبا يا نعم المرادي نجاتي فيك لا داريني نبي الله يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين صلى عليك الله زيني مرحبا يا أصل الأصول مرحبا يا أثنى الرسول مرحبا يا أبا البطول ألفيك ألف مرتين نبي الله يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين صلى عليك الله زيني بآل بيتك الكرام بالأولياء أهل القرام بشيخنا قوس الأنام جيلاني شارق البحرين نبي الله يا نور العين رسول الله يا نور العين حبيب الله يا نور العين صلى عليك الله زيني صلى عليك الله زيني اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا ليال ogeysiis yar ayaan bixinaynaa insha allahu tacaala dadka ku nool New England dadka ku nool waxaan u sheegaynaa inay bisha nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhashay in la dhigayo mawlidka nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi oo lagu qaban doono gobolka Maine qaasatan magaalada Luston Adult School ayaa lagu qabanayaa mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta sabtida bishu ay tahay January 18 ay tahay insha Allah taala waxaan leenahay dadka New England ku nool ka soo qayb gala dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa farxad waa reereen marka dadka muuminiinta ee muhibbiinta nabiga jecel calayhi salaatu wasalaam ee ku nool Boston iyo Vermont New Hampshire dadka ku nool insha Allah taala New England nala waxaan leenahay dabaaldega nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo qayb gala waa farxad oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un qul waxa tirada nabi maxamed oo fadliga ilaahay oo quraanka iyo rahmatuhu rahmado nabiga ha lagu farxo ku dhehbaa la yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam muuminiinta saa ku dhehbaan rasuulka lagu yiri salawaatullaahi wa salaamu calayhi huwa khayrun mimma yajma'un waxyaalaha ay ku kulmsan yihiin tan baa ka khayr badan nabigu calayhi salaatu wasalaam waa rahmad noo dhalatay rahmadii noo dhalatay baan u dabaaldegaynaa insha Allah taala wadakirhum bi ayyaamillahi way ayaamaha ilaahay waa ina xasuusataa marka waxa waa ayaamaha ilaahay midda ugu weyn waxa weeye waa dhalashada nabiga way calayhi salaatu wasalaam ayaamaha ilaahay koonka nasiiyay ayaan ka weyn ma jirto ayaanta nabi maxamed la dhalay salawaatullaahi wasalaamu calayhi marka walaalayaal dadka muhibbiinta ee nabigooda jecel calayhi salaatu wasalaam insha Allah taala waxa lagu qabanayaa masaajidka masjidu salaama Luston masjidu salaama ayaa lagu qabanayaa mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam 1 o'clock ayay bilaabanaysaa 1 o'clock maalinta sabtida January 18 ayuu bilaabanayaa mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam banaanbaxa wuxuu ka bilaabanayaa adult schoolka ayuu ka bilaabanayaa mawlidka markii ilaa maartay muhaadarooyinka iyo banaanbaxa markuu noo soo dhamaadana waxaan iskugu tagi doonaa masjidka salaama ayaan iskugu tagaynaa insha Allah taala dadka muuminiinta ee muhibbiinta ee rasuulka jecelna waxaan leenahay ereyadan ku nool
New Jersey إن شاء الله تعالى New York area أو استيقظ ضدك كنا وحنا لنا كسر قبل قلت على شهادة النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى أطفال كاس أياد نسينا يا ويسيس كمان ضدك مؤمنين تقف كي مغلا هجارسية قف كلا ولا الكيس إن شاء الله تعالى وجعل إنه النبي عليه الصلاة والسلام سياردي سكسر قبل قلت أقول قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.